xaflad ballaaran ayaa maanta lagu qabtay magaalada Helsinki ee waddanka Finland iyadoo ay taageero u ahayd urur siyaasadeedka cusub ee wadani. Bismillahirrahmanirrahiim. hadalka hadda yareeyo shirkan bilaabayna insha Allah. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dhammaan haweenka odayaasha dhalinyarada sida ilaahay ka baryayna inuu taabagelinta kala wadaag wada noolaansho dulqaad sinaan muwaadiniinta oo dhan. wadani wuxuu u taagan yahay rumaynta riyada muwaadiniinta Somaliland ee ah inay ka helaan ictiraaf bulshada caalamka. mabaadi'da siyaasadeedka wadani ururka wadani waxa uu horseed ka yahay siyaasad xiriir ah kana muuqda bisayl hogaamineed. ururka wadani waxa uu ka soo horjeedaa siyaasad guryo noqosho ah. ururka wadani wuxuu u taagan yahay siyaasad ku salaysan wadajir, isku duubni iyo danta guud oo la wada midoobo si loo horumariyo waddankeena Somaliland. siyaasadda ururka wadani waxa sal u ah wada shaqayn dhex marta dhammaan inta ku fogan siyaasadda Somaliland oo laga gudbo siyaasadda ku dhisan muran iyo khilaaf. urur siyaasadeedka wadani wuxuu ka shaqaynayaa sidii dhalinyarada Somaliland, dumar iyo dadka laga tira badan yahay talada waddanka uga qayb gelin lahaa. waxaan taageerayaa in hoos loo dhigo da'da ay ku gelayaan dhalinyaradu golayaasha qaranka. siyaasadda wadani wuxuu mudnaan siinayaa daris wanaag, dowladaha jaarka ah iyo wada shaqayn ay ugu mudan yihiin dhaqaalaha iyo amniga. ururka wadani iyo baahiyaha Somaliland. ururka wadani waxa uu aaminsan yahay in Somaliland baahiyaheeda ugu waaweyn yihiin aqoonsi caalami ah oo ay kaga mid noqdaan bulshada caalamka si ay u hesho xuquuqdeeda ummadnimo uguna gudato waajibaadkeeda dowladnimo. si Somaliland u hesho aqoonsi caalami ah waxa ay u baahan tahay aqoon iyo waayo aragnimo diblomaasiyadeed iyo xiriirro caalami ah. ururka wadani iyo hoggaankiisu waxa uu haystaa khibraddaas, aqoontaas, waayo aragnimadaas iyo xiriirkaas. midnimo dhexdeedana ah iyo gacmaha oo la isqabsado si aynu u noqono qaran wada jira oo dan isku mid ah leh, kana gudubno isu fiirsiga hoose. sidoo kale si aynu u gaadhno midnimo dhexdhexaadina iyo isku duubni waxaa loo baahan yahay hoggaan leh sifooyinka midnimo, dhexdhexaadnimo, isla markaana aan wadan xajiin siyaasadeed. taasna waxaa u taagan ururka wadani. ururka wadani wuxuu tixgelinayaa xorriyadda, karaamada iyo qofnimada wadaniga reer Somaliland, madax bannaanida, saxaafadda xorta ah, dhammaan xuquuqda wadaniga reer Somaliland iyo ciddii la noolba. ballanqaadka ururka wadani waxaa ka mid ah wuxuu wadani ummadda reer Somaliland u ballan qaadayaa hoggaamin toosan, siyaasad mudakar iyo xuquuq siman. wadani waxaanu u rajaynaynaa dhammaan
iyo inta taageertaaba iyo inta hambalyeelaysaba inay ilaahay khayr gaarsiiyo طريقة توصلنا مريض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan jecelahay inaan idin soo gaarsiiyo hambalyo iyo sharaf uu idiin soo dirayo gudoomiyaha ku-meel gaarka ilaa hadda ururkan wadani hogaaminaya Dr. Cabdiraxmaan oo la wada yaqaano dhammaan Cabdiraxmaan Ciro. haddii ay suurto gashana waxaan jecelahay inuu idin soo hambalyeeyo isaga laftiisu inta halkan fadhidaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن آل يعقوب ما سنيهاي إنك أنا واحد قلنا كادنتي كلمة وضياشة كل هاي شركة وحنا ورسينا عاقل مصطفى نور دعاء أو إنه قيمي لجنة تامر نسمع مانتي أسلامتي حياكم الله. meeshan waxaan isugu nimid inaan ka taageerno xusbiga wadani. xusbiga wadani muddo yar buu jiray. muddadii yarida uu jiray waxaad moodaa inuu caqliga ku soo dhashay. ilmuhu waa gurguurtaa, waa qaadqaadaa. isaga waxaad moodaaba inuu caqliga ku soo dhashay. ummadii oo dhan waxa laga yeersiiyay wadani. kaaryoonihii magaalada Hargeysa maray waxa ku dhigsan wadani. dadku waa wada wadani. waad aragteen oo wadan xusbiyada waxay ku mashquulaan inay hees samaystaan. isagoo u sii samaysnaydba. isaga waaba u sii samaysnayd mid kale loo dooni maayo. أصواتها. الماشي واحد يسقون يعني تاجرهم. وهذا كيسينو كلبات مقابلة. وابور موتي جيب اللي بيتي. بير وراي تكان بول المسؤولين. أسبوعي دي لبا لو يلا عتك سنوات اسمع. كان بيشبه هو العيب. ميدو اللي بيلسوا يستاجع عبد الرحمن هكبحين. كارمك. ساسبي قاله marka inaguna hadaan nahay Finland inaan xusbiga taageerno oo gacan weyn ka geysano ayaa la inooga baahan yahay. maxay inoo balana inaan taageerno xusbiga Soomaaliya waa inoo balan hadalku haba sii badin maayo odayaal badan baa jooga waa la iga dambay intaas aan aanu kaga baxayo. يمكن إن شاء الله بسوق ويننا كلمة رقابا نسين دونا بارح جس تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد. يا دمر انت نمشى تمي انت يا جماعه أورك كل جنب والد السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت يا راعي وحين فهي عرضا سيدا حسب وكبر عمي يسيدو كتابق علي يسيدو مكان كسره. الحمد لله أنا قلنا مركا وحنا كهالينا انت عن قضينا أما إسلامنا ما حققوا لنا هاي إن شاء الله مرة ودوا عيننا وحنا لنا هاي إلى هاي كتاب بقى التركيز يدتكيز يدين تسبوتنا الله كانوا آمين. أنت وحنا وقدرنا لمرة هذا إنه هل كان سجون نمي أو شركة سجون نمي أو إنه مدرو يجا واحد لو جاب هاي نو ولا بنو مركو حسب فورنا أيه واحد أنا كفي عن هبل تا يجا تلا يجا نكسبنا إن شاء الله وحنا نكفل لنا إلى هاي نوجد كوي كفي على كوي هرايا كوي تمام إنك أنا واحد لنا وجاب هاي ومرتي نوجي حطوا صوها الله يحضرون صوها اللي بمرتي نوجي taageeradii reer Finland rag iyo dumar ba lahayd oday lahayd dhalinyaro lahayd dumar lahayd uu ka sugayay inuu ka helo
isagana waxaynu ka sugaynaa haddii uu wax u taaba qaadaan ay wax u hirgalaan inaynu ka helno waxa dawlad looga baahan yahay isagana taasaynu uga baahannahay markaa sidaa ugaasku sheegay waxaa inaga ballana waynu u ballan qaadaynaa dee inaynu taageero buuxda mid cod iyo mid gacaneed iyo mid haddii alla ka dhiga diineed inaynu isagana la garab gallo ku taageero ku soo dhaweyno insha allahu sidaasaynu anaguna ku ballan qaadaynaa ula sheegaynaa haddii ilaahay ka dhigo inana aynu isu gudbinaynaa meel walbana waxaa dhisa haddii dadkiisa iyo dalka iyo haddii alla ka dhigayo xusbigiisa xusbiga qolo maaha dadku waxay u qaataan mar hadduu xusbi yahay xusbiga inin leeyahay nin mala xusbiga waxaa leh ninkii taageero gashida ninkii wax gashada ko maanta haddaad geel raacdo ama loo raacdo ama beer falasho dee waxbaad ku leedahay ama ka shaqee ama u shaqee waxbaad ku yahay xusbiga ninkii wax gashada waxbuu ku leeyahay sidaa ha la ogaado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaasaan kaga baxaya aad buu mahadsan yahay faarax iminkana waxaan ku xigsiinaynaa inagoo waqtigu uu aada u gaagan yahay hadalladuna gaaraan karaan waxaan ku xigsiinaynaa oo odayaasha israacinaynaa waxaan u dhibaynaa sheekh deeq kelmadiisa isaguna wax ka yidhaahdo shirkan بسم الله الحمد لله تناول الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت أكدب halkan waxaynu isugu nimid dawaaska wada cadda oo dhammaan odayaashii iga horeeyay baa ku dhuftay taageerada ururkan cusub ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa inaynu si fiican marka hore taageeradeenu mid niyadoo khaalis ay noqoto ilaahayna isagana uu ka dhigo kii ummadiisa iyo dalkiisa manfaca sidii hore loogu duceeyey iyo diintiisaba innagana waxaa laynooga baahan yahay waajibaadka ina saaran waxa weeye markaad meel timaado ama aad cid taageerayso waa inuu shaygu kaa noqdaa shay aad doonayso inaad dhab ahaan uga run sheegtay wax aad si kale u tarjunto ama godho si kale aad u qaadata inaanu noqonin taageerada lagaa rabaana waa wajiyaal badan bay leedahay maanta tii ugu horreysay horta inaynu isugu nimaadno waa ilaahay mahadi taaniyan reer finland waxaad moodaa inagu wadamada kale waxaad moodaa inay aada inooga horreeyaan xagga waxaan u malaynayaa weli yani qaabanqaabayntan la eegoo noocana waxaan malaynayaa malaha weli hore maanu arag ururada cusub ee hadda samaysmayana taageerayntaa la eego yar tahay inta laga geystay waxaad ka garanaysaa dadba waajibaadka iyo dadku say waxaan u jecel yihiin inay gutaan dee maxduurka rag iyo dumarba lagu yimi waa wax aada iyo aada u ballaaran waxaan idinku buurinayaa inay halkaa kasii wadaan wixii laydinka baahdana dee aan goor dhow layswawaayina wax lays helo oo fudud oo dhow ay noqdaan insha allahu tacaala assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad aad baa umahadsan tahay waxaan haddana ku xigsiinaynaa insha allah xasan cabdi oo isaguna kelmadeena kooban بسم الله الرحمن الرحيم dhammaantiin hooyooyinka odayaasha dhalinyarada dhammaantiin waa salaamantiin ururkan shabaxaadiisa iyo ammaantiisa ragoo odayaasha hore waa sheegay runtii markaan anagu arkay ugu horreysay waxaa kasoo waajibtiina aada iyo aad baan u farxay kullay intiina dhamina saas waa wada farxay sida odayaasha sheegeen sunaantikee wakiila maaweena waxaa la wehilaa waa amaar hanti xoog af urur inta wayna isugu noolaaday insha allah waayna maanta keliya ugu dambeyn maxaa yeelay inkastoo la kala fogeeyo xaafadu kala fogeyn haddana warku markiiba u dheereeya wuna soo gaaraya saas daraaddeed aada iyo aad baan u soo dhaweynaa ururkan una taageersannahay ilaahay waxaa geli jira kii dalkiisa dadkiisa diintiisa afaal allah ka dhig saas iyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baa umahadsan tahay waxqabadka ururka maadaama guddigiisu yahay dhalinyarada iminkana in xoogga la saaro dhinaca dhalinyarada waxaa u dhiibayaa oo kelmadiisa la siin doona master maxamed xasan
مكان وأنا والله إنك دليل كل يوم بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. dhammaantiin waa islaamaya kulay martishaabka meesha isku timid rag iyo dumar iyo dhalinyaro iyo waayeel iyo aqoon-yahanba waxaan u malaynayaa kulley hadal badan ma banaano oo Soomaali sida waxa u caada ah hadalka meesha la iskugu yimaado dhowrka nin ugu horeeya hadalka qaata oo noocaasi muhiimadda ka hadasha waynu wada dareensanahay kulley maanta waxaan isugu nimay taageerada xisbiga wadani taageero keliya maaha waynu ka midnahay oo xisbigaynu ka tirsannahay waxaa la rabaa inaynu naf iyo maal iyo fikir iyo waqtiba gelino dadka aasaasiyaasha xisbigaana aynu ka mid noqono waxaa si gaara aan ugu faraxsanahay Finland inay tahay meeshii ugu horeysay ee qurba ah ee laga taageero xisbiga wadani ama lagu qabto xaflad noocan oo kale ah runtii waxaan moodaa inay sharaf gaara inoo tahay dowladda reer Finland waa wax wanaagsan waynu taageersannahay kulli qaabka ku bilowdanay waa laga soo sheekeeyey haddana waxaad moodaa de kulley saadaashu badanaa dadka ayay ama shacabka ama dhalinyarada ayaa badanaa saadaalisa waa si ninka caaqil kuu sheegay hargeysa wuxuu yidhi hadda keliyoolayaasha macada ku dhegan yahay caalamka wadani marka waxaad moodaa qof kastoo hadda sheekeynaya iyo meel kasta waxay ku qoran tahay 5 sano soo socda madaxweynaha next president waa Cabdiraxmaan Ciro waxaad moodaa inay tahay wanaagsan kulay wasaare wanaagsan inaguna inaynu taageerno oo barnaamijka qayb ka qaadano haddaynu qolba joognahay gaar ahaan reer Finland ayaa laynooga baahan yahay haddii ahaan lahayd aqoon inaynu gelino oo qof kasta wuxuu yaqaano iyo haddii dhaqaale noqon lahayd iyo haddii wax kale noqon lahaydba shakhsiya kulli anigu waa soo dhaweynayaa barnaamijkan iyo xafladana kulli dadkiisu kasoo shaqeynayay soo wadi waa ka mid ahaa waana ka tirsanahay kulla xisbiga aasaasiyaashiisa iyo taageerayaashiisa iyo wax oo dhanba dhammaantiina waxaan idinku baaqaynaa inaad ka mid noqotaan oo qof kasta meesha joogo inta maanta joogta iyaduna ay ka shaqeeyaan inta laga maqanna loo gudbiyo iyagana la gaarsiiyo oo qof kasta waa in maaragta isgaarsiino xafladaha dambe soo socdana aynu isugu nimaadno kuwa tan ka ballaaran oo ka qurux badan iyo ilaa aynu aakhirka iyo gabagabada iyo doorashada ugu dambeysa aynu isugu nimaadno waad nimaasantihiin dhammaantiin aad baa idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi aad baad ku mahadsantahay Maxamed imikana waxaan u dhiibayaa saaxiibkay Hilal بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين horta waxaan u leeyahay marka hore urur baa la furaya baa la yidhi xis wixii dadku qaada hadalkii badan la qaado maarta hadalkii khayr ku jiro baa bogsoonta qaadna wuxuu baa leedin ka wada yeersiiyay xisbi waxaan ma leeyahay ururkiiba xisbi baa ku noqday ya way qofkii kacaabo wuxuu leeyahay ururka ayaan xisbigan ka mid ah waa xisbiyoobay horta kaba soo qaada way afkiina waa badan kuma wada qaadeen xisbiga labaad كل ويس قاعد هاي ما هدي له فصحي الردي كل أنا راعي أنا قاعد ده حس بيجي لو بدي حس بيجي هل قبل بقول رجلي كل هدي له فصحي الردي واحد مناسبة قف كستا وموادنا أما قف كستا بقيله فكر كيسة ومنو كراعه فكر كيسة ندل الجمسور شيء سنة يو هدو كراعي هدو كراعه لكن واحد وياه waxa aan bal afkaarta uu qof kasta soo bandhigayna in loo raaco ee loo raacin afkaar qabiil oo loo oranin kan wuxuu ka soo jeedaa meelheblaayo kan meelheblaayo ka soo jeedaa wixii wax wacan wada dadka iyo dalka iyo dantaba wada in loo raaco runaantii waan ugu hambalyeeyaa ururkan cusub ee wadani furashadiisa kolay markii hore waa iskaba sheego berigii hore waxaan ahaa udub kadibna wuxuu maxan ahaa kulmiye oo xaaji cabdiraxmaan iska ahaayo halka qoladii timaada siga la jaaraha anigu kolley imika rabta waa idinla joogaayo wadani baan marka hore xagga xukunku ma u dhawaan jiro kursiga ayaa la jaarahay ya midda labaad qalalaasin baan diidan anigu waxa shayga qalalaasaha la yiraahdo wixii la kala qaato oo si waxa loo isu footeeyo oo la kala qaataan jecel laakiin in dhibaato dhacdo qalalaasa dhaco ma jeceli sida awgeed baa xaaj cabdiraxmaan ku noqday imika dambar hadii la yiraahdo wadani markii hore waxaan u maleynayaa mid hangool samaysto oo yiraahdo udub baan ahay iyo mid yiraahdo waxbaan kulmiyaa
laakiin imika wadani bay maraysaa mar hadday taabda noqoto de muwaadin baa la noqonaya wadanigaa la raacaya marka imikana laygu ogaado wadaniga labada arrinaa wadan ahayn baan rabaa inaan meesha ku yaro daro qolada ayaan lahaa udubtay kulmiyihii iyo waxa qolada yaroon isku arday ahayn baa moogsanta wasiirka ayaan taageeray maahe ya duur iyo duurista hawada ninka haystayna xaashiye haddana maanta waxaan leeyahay waan anigu baltee moogsanta duur oo booskaasoo kala raajinaya aan wadani ka raajinaya kaaga waxaan ku filaa asalaamu calaykum بعد ما سمعت هذه هذا وانا شكرا ويا عبد الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وما بعد. وحلقيا وذاكرين اسم الدين والمدادين وحاطات. وحلقيا بيني إلينا ورك لسه عندنا شلي تونسية المدادين عدك أفرت يا اللحظة إني كل ستين. marka malaha muddo badan baa masaajidada fadhiyay ya intuu wuxuu ahaa cibaadaysan caqliga ku hayay tani oo ficil ciyaara من بكير وما هيصنع ما لو حرمين كراسنا هي قصر يوم قدر صنع قروين كا عصوبة هنيدي الوفد يسوي جيران حويان دريت اللي يقعد يدينا هنا وحنا كبرنين إن شاء الله وحنا جعلها هي إن كنت marka kuwaad u mahad celiyo dhammaan dadkii soo qabanqaabay xafladan iyo ka soo qaybgalayaasha inta aad loo mahadsantihiin runtii reer Finland sidii walaalihii ugu horreeyay sheegeen baa waxay noo tahay fursad inaynu noqono meeshii ugu horreeyay mataqaanaa laga taageeray islamarkaana laga qabtay sunnadaas aan bilownay waxaan rajaynayaa inay meelaha kale ay nagu dayan doonaan waxaa la yidhaha wax xun iyo wax sanba raggu dadku iskaga daydaan marka waxaan rajaynayaa inay qurooyinka laba nagu dayan doonaan xafladan ururkan wadani aan iskugu nimidnay waxay qayb ka tahay dadaalada iyo horumarka socda ayay qayb ka tahay waxaan rajaynayaa inay hadduu ilaahay ilaahdo ilaahayna aan ka baryayno in ducadii maanta aan odayadeena iyo culimadeena iyo mataqaan aqoonyahanka inuu sheegay ilaahay naga aqbalo tusaalena u noqoto oo ururkaa xisbu noqdo hadduu alla idmo insha allah kulley dee kaftanku la dayn maayo anoo galbeed baan ka nimidnay كلية حاجة إيه على جسوا بالعربي. مركا قولين كي صار يو أوضل يو سكسوا جيشنا بري ذيك يني تالا. مركا إن شاء الله أدبن كوتشينينا وحنو إلى أوبرينا دنيا ملجأ كأ يو عدة تنبيه صوص عطوا إلى هاي إنه وافج يو إسلام كان إنه غضان كنت يقول السوقي مدة فرق بدن بالسوقي وضعك لما بالبكرة مغنين فكبوجة هذا isbedel fara badan baa ka dhacaya dhalinyarada muddo fara badan ka maqnaa khaasatan reer Finland bulshooyaal iyana ka noqon runtii ururada inta badan waxaa laga wadaa dibadda lagama wado waddanka gudihiisa dadka jooga inkastoo ay dadaal fara badan jiraan laakiin nin walba noloshiisa waxoogaa iska yar adkaysay halkan waxaa laga yaabaa gurigii jaarkii iyo korontadii iyo caanihii intii yaraa in meel lagaa saaray waqti fara badan oo kale inaad haysid marka intaad ku mashquuli lahayd hawlo kale inaad malaayiin qof baa ku sugaysay inaad malaayiinka ka qayb qaadataan aad baan u rajeynaya khaasatan dhalinyarada inay mataqaanaa arrintan waxay haytaan oo mataqaanaa khasab ma aha taageeradu inaad waddanka u gurto durba siyaasadda waddanka halkan aad kasii baratid oo sii gashid mataqaanaa active ood ka noqotid 3 bilood samarka oo tagtid hawlo fara badan iyo siyaabo fara badan ayaad wax uga qaban karaysaa runtii arrintaasaan insha allah jeclahay in lagu baraarujiyo waxaa weeyaan muxuu ahaa ragbo waa burageed baa layidhi iminka waan iska sii bootaynana malayna doorashada markii la furo dhowaan markii la furo halkan baa la iskugu wada iman doonaa gacan maris baa ururadii kala iman doonaa maalintaas baa ayaa laynoo baahan yahay soo ma maalintaasaa laynoo baahan marka waxaa ballanino ah ina markaa hadafku haa waa halkaas inaan isku nimaado jasaakum allah khayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maantana waxaa sharaf leh dadka isku keenkeenay ilaahay mahadi xusbi miyaan mise urur baa yidhahdaa anigu xusbigaa wadadii horaa dhacay oo halkii liliye
inkastoo anigu aan yara silugsanay galbeedka uu yidhi cabdi waa laga soo bilaabaa aan jeclayn bari laga soo bilaabo oo yaa laakiin waxa weeye runtii maanta waxa weeye de waxaad arkaysaaba shirka mar haddii xusbiyada ama ururada ay dumarku ku wataan wuu guulaystaan ogaada waayo waxaan arkay markan halkan mid dumarka u badnaa marka waxaan